isuduwaha hay'adda quality control ee gobolka Saaxil iyo xubno ka socday waxda saxada ee dawladda hoose magaalada Berbera ayaa raashin iyo badeecado dhacay ku gubay meel ilaa 15 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Berbera badeecadahaasi oo laga soo wareegay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland isla markaasina lagu daadgureynayay ilaa 5 gaari oo waaweyn oo nooca xamuulka qaada ayaa isuduwaha hay'adda quality control iyo waliba xubnaha ka socday waxda saxada dawladda hoose magaalada Berbera ay ka warrameen badeecadahaasi iyo dadaalkii loo galay in ganacsatada laga soo ururiyo iyo inaanay ku faafin suuqyada ganacsi si aanay bulshada waxba u yeelin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maaha markii ugu horeysay badeecado dhacay ama waqtigoodii dhaafay laga soo ururiyo ganacsatada kala duwan hase yeeshee baryahan dambe waxaa jirta in had iyo jeer hay'adda quality control ay magaalada ka soo dhexuriso badeecado iyo dawooyin waqtigoodu u dhacay isla markaasina laga hortago si aanay bulshada caafimaadkeeda waxba u yeelin waxaan ku gubanay waa biskuutkana waxaan ku qabanay waa dad ganacsado dadkeenba lagu soo caamiyay ama isagu akhri si kala u keenay waxa expire oo dhacay ayuha وانا كان هذا كيسان نجوبيه وحي دكتور بربري يمادة أنا ساس بلوجوبيه أيدي أن ليجا الحين أن أمد بروسيسكي يدي وحي أمد إنه إجماع الشغل يدنا أي حيد أنا كل كاترول كبار والله شغلنا وحن وش يجنا تجارة كلا يجنا ستة أي ألعاب ملها تهلا إكسباير يشتروا إني ناس حيران maaha markii ugu horeysay badeecado dhacay ama waqtigoodii dhaafay laga soo ururiyay ganacsatada kala duwan hase yeeshee baryahan dambe waxaa jirta in had iyo jeer hay'adda quality control ay magaalada ka soo dhexuriso badeecado iyo dawooyin waqtigoodu u dhacay isla markaasina laga hortago si aanay bulshada caafimaadkeeda waxba u yeelin dhinaca kalena dooxa cabad weyne ee deegaanada tuulada Lafaruug ee gobolka Saaxil ayaa lagu soo warramayaa inay ku xaniban yihiin gaadiid iyo dad tiro badan oo u kala gooshaya gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii dooxaasi roobab la xadlo ka daayay deegaanadaasi dhowrkii maalmood u dambeeyay ay ku soo rogeen ciid tiro badan isla markaasina dooxa meelo ka mid ah ay go'een arrinta ayaa la sheegayaa inay sii xoojinayso dabaylaha dhacaya xilligan xagaaga ee maansuunka oo fur galbeed inkastoo xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaal fara badan u gashay dib-u-gaajinka iyo dib-u-dhiska wadooyinka gaar ahaan jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera haddana waxaa jira inaan weli maar loo helin dhibaatada dadka ay gaadiidka ka haysta dooxyada iyo tooga waaweyn oo u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera kuwaasi oo ay ugu waaweyn yihiin dooxada Carbudhuq Lafaruug iyo Barkhadle kuwaasoo sanad walba galaafta nafaha dad badan isla markaasina u baahan in maar loo helo dhibaatada joogtada ee soo noqonaysa iyo sidii dadaal joogta oo faraku hayna loogu sameyn lahaa xilliga roobku ay daayaan Cabdisalaam Xariib TV qaranka Soomaaliland Berbera